adigoo bad qaba misku aragtaa xilliyada qaar indha xanuun iyo wareer haddii ay jawaabtaadu tahay haa waa hubaal inaad dhafarto niyo horta markii laga hadlayo arinta dhafarka horta aniga habeenkii aad aan u dhafaraa nin iskaabul ah waa dareemi kartaa marka ay wax ka maqan yihiin waa inuu wax raadiyaa aan ahaan markaan iska hadlo inta badan dhalinyarada dhafar ma ku jiro in badan xataa waxa dhigi karaa aniga waxa ay qabiir dhafar wax qof kasta qabiir weeyaa booyay qabiir dhafar waayo waxaan soo arkay micna dhafar badan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu talagalay habeenkii in la nasto qala ta'ala ilaahay wuxuu yiri waja'alna nawmakum subata waja'alna layla libasa marka waxaan ka yeelnay hurdadiina raaxo in ku raaxaysatiin sidiisa ahaan xugun gaar ah ma leh waxa uu leeyahay waxa lagu soo jeedo nooca ay yihiin weligii ma dhaafin labada ama 2 o'clock ama 8 saac halba si loo yaqaan intaan xasuusto shukaansi intaan ku dhafray xilli dambe aan ku gaarin yow ma jiro hadda هذه الحالات يمكن أن تسبب الأرق ولكن السبب الأشيع للأرق هو عبارة عن سلوكات اجتماعية خاطئة الإنترنت الفيسبوك اليوتيوب التلفزيون متابعة المسلسلات بشكل يومي هذا يجعل من الأشخاص الشباب والفتيات قفك اسبتال وواحد كدب اسبتال وهذا هذا مركز حكومة بروبلم حق خرجك حق عافماتك وحياة بدنا حكومة dhalinyarada Soomaalida ayaa iyagu ah kuwa siyaabo kala duwan u dhafra marka laga soo tago dhalinta ku dhafarta waxyaabaha maanka dooriya waxa kale oo jira kuwa ku dhafra hasaawaha ku hadalka telefoonka gacanka haba ka sii badnaadaan kuwa kale ee ku dhafra isticmaalka baraha internetka sida aaladaha Facebooka YouTube-ka iyo kuwa kale haddaba waa kuwan qaar kamid ah dhalinyarada Soomaaliya oo ku dhaqan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaasi oo ku kala aragti duwan dhafarka inta badan anaka waa dhafarka aad iyo aad oo ku dheereena inta badan waa dhafarnaa macnaha Facebooka Twitterka internetka YouTubeka inta badan adiga shukaansiin waa ugu jiraa wallahi aniga waqti ugu dhafarka xumaa waxay ahayd inaan habeen aan qad soo galay ana dadkii xaafadii la joogay ee jiifteen ee igu soo kaceen macnaha salaadii subax anigoo inta soo jeedo oo aan ka bixin oo soo jeedo indhahan isku dhigin wax faa'iido ah hadda aan ka hayo wallahi hadda ii sheego ma lahan laakiin وسوين إن شاء الله. ضفرك ولا صوّد مري كي إسكابولها كي إسكابول هيمبو ضفرك وواح سيستم يتهت الله هو الحمد لله ده واحد كم من أصحاب ضفرك وكجيرة ضفر ده مرة بينك ما قشد إنك سولي فائدة ضرب بدن لكن فائدة بدن الله صوبته مستقبلك مش هو جار اللي أكيد ضفرك بينك واحد ضفرنا إلا وحكي بالله أفر ساعة وحكي دمبي إلا أنت كلام ده كله سجيد صوبته بينك وحلا ضفرك لو بدل ما أنت لو بدل بينك شو يدقن هرت ما شاء الله هرت ضفرك ما شاء الله وناكسي هرت سمتم خوفك مركو ضفرايو بلا يروى أسيت تخانة بس كده بعد بني مرمرة حالك يا وقفك مركو ضفريسي أما حبضوها من على شيء كسين أنا حتى صارت صبح أنا كاتك تلاقي يا haddaba diinteena suuban maxay ka qabtaa dhafarka faraha badan waa kuwan qaar kamid ah mashaayikhda Soomaaliyeed ee ku nool gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaasina qayb ka ah hay'adda culimada Soomaaliyeed oo aan la kulmay inta aan ku guda jiray diyaarinta warbixintan waxa jira waxyaabo la isu ogol yahay ama ay wanaagsan tahay in lagu soo jeedo cilmiga kamid ah danta ummadda in laga shaqeeyaa kamid ah cibaado iyo salaad iyo quraan iyo adkaar iyo wardi in lagu soo jeedaa kamid ah in dad loo kaalmaynayo la caawinayo baa kamid ah laakiin wax dambiya mar walba lama ogola oo xaraan ah waxaan kale oo la ogolayn oo aan munaasib ahayn wax aan faa'iido lahayn oo laqwiga la dhaho ama maalayacniga loo yaqaan wax qiimo lahayn oo adduun iyo aakhira mid aan wax tarayn qofku inuu waqtigiisa ku lumiyo lama rabo nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu nacay oo uu reebay salaada cishaha ka hor in la seexdo iyo in la sheekeeyo salaada cishaha kadib culimadu marka waxay ka soo reebeen waxyaabihii aan sheegno oo aan tirinay oo cilmiga iyo cibaadada iyo dan guud in laga sheekayno dan umadeed ama qofeed waxay rabtaa ahaatee khayr in la falayo baa laga soo reebay habeenkii marka jirka wuxuu u raaxaystaa markuu hurdo helo waqti fiican si uusan uga helin raaxo saacadaha kale oo aan habeenkii ahayn waxaana ugu sii caafimaad badan saacadaha hore ee habeenkii waxaa la yiraahdaa hal saac oo habeenada saacadaha hore ka seexato waxay ka khayr badan tahay ka caafimaad badan tahay 3 saac oo habeen saacadaha dambe ah sida daradeed sunnadu waxa waaye
dhalinyaradu in ay waqti ku filan oo ay hurdaan ugu yaraan 4 saacadood habeenkii ay hurdo helaan si ay maaragtay maskaxdoodana ay u caafimaado. afar kasta oo aan ku dhisnaynin wanaag oo aan cibaadada ahayn oo dalka ay dadkaada wax ku soo saarsanaynin waana caafimaad darro waana waqti dhumis waqtiga qofka muuminka waqtigiisa waa qaali waa inuu waqtigaas wuxuu ku bixinaa ay naqdaan walax qiimo leh waxaan qiimo lahayn inuu ku wax soo xaran caafimaad ahaan qofka dhafra muxuu dhibaatooyin ku reebi karaa waa kuwan qaar ka mid ah dhaqaatiir Soomaali iyo ajaanib isugu jira oo sharaxaya dhibaatooyinka dhow iyo kuwa fog ee laga dhaxlo dhafarka. وهو نتيجة عن سلوكات خاطئة لدى الشباب والفتيات في أغلب الأحيان. هناك بعض الأحيان سببها يكون سبب أمراض عضوية، مثلا ألم شديد، مثلا فرط نشاط الدرق. هذه الحالة يمكن أن تسبب الأرق، ولكن السبب الأشيع للأرق هو عبارة عن سلوكات اجتماعية خاطئة. dhibaatooyinka dhashay inta badan waxaa kamid ah qofka waxaa laga yaabaa in habeenkii uu ku dhafro subaxii uu waxbarasho ama shaqo uu leeyahay waxay keeni doontaa subaxii haddii habeenkii waqti badan uu soo jeedo in subaxii shaqadii uu ka habsaamo waqtiga uu ka daaho ama in shaqada si fiican u gudan waayo taasna waxay keeni doontaa muddo kadib in qofka isbitaal waxa kadib isbitaal uu aado hadhow markaas waxa ku imaanaya problem xagga ah qarashka xagga caafimaadka waxyaabo badan ku imaan doona marka waxaan soo jeedinaynaa dhafarka in la yareeyo Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho dhalinta ku nool dhafarka marka loo eego xilligan waxaa ka sii darneed sanadihii 2014 ilaa 2015 xilligaasi oo Soomaaliya si aad loogu fududeeyay isticmaalka internetka waxaa soo kordhay sanadahaasi aaladaha internetka gacanta lagu qaato iyo kuwa kale oo teleefankaada si fudud ugu isticmaali karto. Cabdulqaadir Umar Cabdulla Fiidka gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho Somali Cable TV.